السلام عليكم. كتاب sideed ku noqon kartaa la xiriiro wanaagsan qof dadka si wanaagsan oo la xiriiri karo dhinaca hadalka. waa xalqadii koobaad ee kitaab aan soo akhriyay oo aan si kooban ugu soo gudbin doono kutubta aan leeyahay wayna anfici ee aan soo akhriyay. kutubta aan u arka in dadka walaalahay ay wax ka faa'iidayaan faa'iidana noo dhammaanteen ee aan soo akhriyay ayaan waxaan samayn in aan soo koobo ama qodobada ugu muhiimsan aan ka soo qaadano si ay faa'iidada dadka dhan u wada gaarto. kutubta aan xalaqooyinka noocan ku soo gudbin doonana waxay ahaan doonaan kutubta la xiriiro horumarinta nafta, dhiirigelinta nolosha, arrimaha noocaas oo kale, nasiixooyinka dadka khubarada ay u jeedinayaan dhalinyarada iyo dadka soo korayo, qof kasta oo rabo inuu horumar gaaro oo wax ka faa'iidayo. kitaabka aan maantayto xalaqadan ugu horeeya ku qaadanayno magaciisa waa sideed ku noqon kartaa la xiriiro wanaagsan. magaciisa asalkeena waa how to be a great communicator. sideed ku noqon kartaa la xiriiro wanaagsan dhinaca la xiriirka dadka, la hadalka. waxaana qoray nin lagu magacaabo Nindo Coping. waxaa adag in kitaab intaan la eg lagu soo koobo dhowr daqiiqo, laakiin waxaan soo qaadanaynaa insha Allah qodobada ugu muhiimsan kitaabka. kitaabku wuxuu ku bilaabayaa sidaan: la xiriiritaanka, in aad dadka la xiriiri taqaano, adeegsan karta kelmadaha wanaagsan, hadalkaaga cad yahay, la fahmayo. waa waxa ugu muhiimsan ee casrigan aan noolnahay, zamankan aan noolnahay loo baahan yahay. tusaale, markaan leenahay hebel waa qareen lawyer, waxa ugu muhiimsan ee uu leeyahay waa in uu yaqaano la xiriirka dadka, in uu hadli karo, in qadiyad loo wakiishay oo ka dhaadhicin karo maxkamadda iyo garsooraha ugu sarreeya, in uu hadalkiisa cad yahay, fahansan yahay kelmadaha uu adeegsanayo, hadli karo. waa qareen. maanta muhiimadda ugu weyn ee ragga ugu sarreeya shirkadaha waaweyn sida Google, Microsoft iyo shirkadaha kala duwan, waxa ugu muhiimsan ay qabtaan waa in ay shirarka waaweyn ee caalamka oo dhan laga daawanayo, shirkadahaasna qabtaan, ka hadlaan, suuq geeyaan shirkadaha, mashaariicda waaweyn u sharaxaan. kitaabku wuxuu leeyahay markaan dhalannay wixii ugu horreeyey ee afkeenna ka soo baxo waa oohin, taasoo ah cabirid aan cabirayno jiritaankeenna. canuga markuu dhasho yar yahay ma hadli karo, wadada uu adeegsado si uu dadka ula xiriiro waa oohin. hadduu gaajoodo wuu ooyaa, haddii uu xanaaqsan yahay wuu ooyaa. waxa uu ku cabira ama luqadda uu adeegsado waa oohin. wuxuu leeyahay qoraagu, inta aanan socodka baranin waxaan barannaa la xiriirka sida oohinta, qosolka, ta'taada, hooyo, aabbo, kelmadaha noocaas oo kale oo dhammaantood ah xiriir canug uu labadiisa waalid la xiriirayo iyo dadka ka agdhow. waxaan kitaabka ka soo qaadanaynaa 5 qodob oo muhiima oo ah furayaal kaa dhigayo la xiriiro wanaagsan. waa 5 fure oo kuu furayo wadada inaad noqoto la xiriiro wanaagsan. qodobka koobaad, rabitaanka. tusaale, haddaad leedahay canug yar ama kula dhashay laakiin aanan hadli karin, rabana canugaas shukulaato ama nacnac, tusaale ahaan, wuxuu awoodaa in uu cabiro waxa uu rabo asagoo wadooyin kala duwan adeegsanaya, sida inuu farta ku taago kale, taasoo ah in qodobka ugu muhiimsan ee la xiriirku yahay in uu qalbigaada ka soo go'ay in aad la xiriirto shakhsiga aad la hadlayso. carabku wuxuu tarjumaa oo hadal u beddelaa waxa qalbiga ku jiro. markaad qof la xiriirayso, dhammaan soo jeedkaada, wacyigaada qofkaasi. xilliyada qaar markaad la hadlayso qof aanan hadalkaada rabin ama xitaa adiga aad mashquulsan tahay, niyadna u haynin, idinma dhex mari karo wada xiriir micno leh, sababtoo ah rabitaan ma jiro dhinacaaga ama qofkaas kale dhinaciisa. tusaale kale, qof haddii aad la hadlayso adigoo gacanta ku haya mobile, waxna u sharxaaya laakiin mobileka ku mashquulsan, qofkaas idinma dhex mari karo xiriir
lagu tilmaami karo xiriir wanaagsan oo dhinaca wada xiriirka hadalka, sababtoo ah rabitaan buuxo dhinacaada kama imaanin. moobaylka xir, jeebka geli, si toosa u istaag, qofka wejigiisa fiiri, kadibna hadal waxa aad rabto u sheeg. qodobka labaad ama furaha labaad, fahan arrinka, fahan qadiyadda, fahan waxa aad ka hadlayso. wuxuu leeyahay qoraagu, waxa aadan fahansanayn waxa ay yihiin kama hadli kartid. haddii tusaale ahaan qof kuu soo bandhigo in aad la taliso, in aad arrin kala taliso, isku day in aad fahanto, si fiican u fahanto waxa uu rabo inaad kala taliso, si idiin dhex maro wada xiriir wanaagsan oo midho dhal ah, natiijo fiicanna uu kaa helo qofkaas kaa dalbaday tashiga. haddii aad dadka kelmad u jeedinayso kale, waa inaad fahansan tahay waxa aad ka hadlayso waxa ay yihiin, in aad soo diyaarisay ugu yaraan si fiican u soo diyaarisay aad ka hadli karto. iskuulka weli macallin ma kaa dalbay in aad sharaxdo mas'alo xisaabeed ama fiisigis ama noocay doonto ha ahaato, kadibna hadalka ma kaa soo bixi waayey, ama ma u muuqatay qof aanan waxba kala ogeyn? ceeb aad leedahay ma ahan, ama inaad tahay qof ebera, ee waa in aadan fahansanayn waxa uu kaa dalbay macallinka inaad sharaxdo. haddii uu macallinku kuu weydiiyo su'aal xisaabeed oo kale, laakiin aadan fahansanayn uu ku dhaha faahfaahin ka bixi, waxaa dabiici ah in aad aamusood garaweydo waxaad ku hadasho, taasoo in qofka uusan awoodin inuu ka hadlo waxuuna aqoonin. aan ogaano in kitaabku yahay sideed ku noqon kartaa la xiriiro wanaagsan, ee ma ahan la xiriiro keliya, qof la xiriiro oo iska hadlaya keliya ma ahan. dadka aftahanada ee ka hadlo mimbarada sida TED Talks, kuwa khudbadaha caalamiga jeediyo, ma ahan dad naga caqli badan, nagama caqli badno, keliya waxay sameeyaan waxa ay ka hadlayaan ayay aad u diyaariyaan, macluumaad badan ka haystaan, juhdi iyo dadaal ayay geliyaan. waxaa laga yaabaa qof in lagu dhaho kale isbuuca soo socda maalinta jimcada ayaad waxaa jeedin kelmad 5 daqiiqe, kadibna isbuucaasoo dhan uu sii tababarto ku soo celceliyo sidii uu u jeedin lahaa kelmad uu fahansan yahay waxa ay tahay, oo uu soo gudbiyo 5 daqiiqood isleedahay waaw, qofkaan caalami weeye, qof aan caadi ahayn, laakiin waa qof soo diyaariyey, fahansanna waxa uu ka hadlaayo. faraha saddexaad ama qodobka saddexaad, lahaanshiyaha skills ama mahaaraad macquul ah. wuxuu leeyahay qoraagu, in aad hadalkaada dadka gaarsiiso uma baahno inaad xoogga saarto naxwaha ama garaamarka, oo hadalkaadu noqdo hadal waaweyn oo angegan yaabisa, sida inaad dhagaxyo laqlaqaysoo kale. taas micnaheedu ma ahan ayuu leeyahay in hadalkaadu luuqad ahaan uuna saxsanayn oo aad ku hadasho hadal qaldan, laakiin muhiimaddu waa inaadan xoog saarin inta badan garaamarka iyo naxwo hadalka waaweyn ee adag. Churchill wuxuu ahaa ra'iisul wasaare Ingiriiska soo maray, aftahana, weliba qoraa weyna, gabya jirayna, suugaanyahan weyn ahaa. waxaa la sheegaa inuu qiimo weyn siin jirin, qiimama uu siin jirin naxwaha iyo garaamarka Ingiliishka. mar ayaa la sheegay asagoo khudbad jeedinaya inuu galay qalad dhinaca garaamarka naxwaha. markii loo sheegayna wuxuu ku jawaabay, ma jecli Ingiliishka noocaas oo kale, ma jecli in aan inta badan qiimo weyn siiyo garaamarka. mawduucan marka yara dhawaajiyey aan ku yara celino. dadka markay dhagaysanayaan khudbad jimcaha maxay inta badan u hurdaan, u halaaqoodaan, u caajisan yihiin hadalka khatiibka ugu soconin? sababta waa in khatiibku ku hadlaayo hadal aanan la isticmaalin, hadal rasmi ah oo naxwo u badan, shid u badan, hadal waaweyn oo qofka masjidka ku jira inta badan uusan fahmaynin. xataa kuwa carabiga u dhashay ma fahmaan inta badan khatiibka waxa uu ku hadlo, laakiin waxaa jira rag khutaba oo arrinkaas fahmay oo isku daya in ay dadka si toos ah ula hadlaan oo hadalka noocaasi waaweyn naxwaha u badan ka soo yara degaan. haddii aad hadda khatiib tahay oo aad khudbad jamcada akhriso, bal tijaabi, xilliyada qaar tijaabi in aad khudbadda ay u badnaato hadal dadka u dhow ay fahmi karaan, dadka masjidka ku jiro hadal ay fahmi karaan, wax ay yaqaanaan. waxaana la isku raacay in muhiimadda koobaad ee khudbad jamcadu ay tahay in dadkaas masaajidka soo galay wax uun faa'iido loo sheego, waxay ahaadaan hadal ay fahmayaan inaad u sheegto, xataa qiso yar inaad u sheegto, hadal uun ay fahmayaan, aakhira iyo adduuna faa'iido ah. wuxuu leeyahay sidoo kale waa in aad taqaano farqiyada u dhexeeyo cidda aad la hadlayso, adigoo adeegsanayo
kelmadaha munaasabka ku ah cidda ku hortaagan. haddii aad la hadlayso kale qof mas-uula noocu doonaha